السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا عشر كالي وحسلا عشر كنتانو قد قلين دمان أرضيدا وعاك أوسانا channel كيني تاغيران سبسكرايب يساران ان أرضيدا كالي غارسيان عشر دا أونلاين كوي سعودان ونقصو بيري كرتان نمبرك مشا يوكو قرين هاي يوتيوب كاي كهليسا يا تيك توكنا فولو نقصو ده سي عشر دا أولا سعوتو سكول كو فرين هاي ان اسلي يوكيالا لحادك and 6 street ayuu ku yaalaa home tuition haddii aa u baahan tahay waad helaysaa haddii laga soo tago cashirada iskuulka iyo cashirada online haddii laga soo tago home tuition waa helaysaa haddii aa u baahan tahay macalimad haddii aa u baahan tahay macalin haddii aa u baahan tahay macalin Soomaaliya iyo macalin aan Soomaaliya kulli waa lagu helaa okay mid kale ardayda badanaa tuushamanka soo weydiiso tuushamanka shuruudihiisa mise dhigataba oo aanan hal u xiriirin karin oo tuushamanka macallimiinta xaafadda ay ugu tagaan shuruudaha tuushamanka hala ilaaliyo macallimiinta waqtigoodana hala ilaaliyo iyo xisadaha maadaama xaafadda la iskugu imaanaya macnaheeda maahan in wax walbo in flexible laga dhigo xisadaha oo qaabkii sidii la rabo la yeelo hadda waxaa arkaysaa shuruudaha iskuulka mise online ku degan ardayda inay si fiican u raacayaan laakiin xaafadii la yimaado xoogaha tashwiish badan oo iska jiro okay wada sheekaysi maanta waxaa isla fiirin doonaa waa isagana wada sheekaysi isbarasho ah la soco cashirada qaarkood su'aalaha qaar hore usoo aragteen unaitwa mazungumzo wada sheekaysi kow hordhawaaq isla fiirino mazungumzo wada sheekaysi wada sheekaysi unaitwa nani unaitwa nani ninaitwa Bisharo Bisharo nani Muhammad unakaa wapi alaasta macnayno unaitwa nani magaca taas boqol mar ayaan soo aragnay unaitwa nani magaca ninaitwa Bisharo nani Bisharo ayo Bisharo Muhammad unakaa wapi macnaheedu waxay la mid tahay unaishi wapi xagee ku noosha unakaa wapi marka xagee degan tahay oo kale waa unakaa wapi xagee degan tahay unakaa wapi mise xagee ku nooshahay qofka marka wuxuu dhahay ninakaa Nairobi hasa isli ninakaa Nairobi hasa isli unakaa na nani ninakaa na familia yangu ninakaa na familia yangu wewe umeolewa ndiyo nimeolewa ndiyo mimi nimeolewa uliolewa lini niliolewa kitambo macnaha marka ninakaa marka la dhahay unakaa wapi xagee ku noosha mise xagee degantaa marka wuxuu dhahay ninakaa Nairobi waxaan ficilka mid kale ka iska fiir macnihiisa kale ficilka ka fadhin aa loo isticmaalaa hadii lagu dhaha ka hapa waa keti hapa oo kale halkan fadhiiso marka hadii lagu weydiiyo unakaa wapi xagee fadhisaa adhow u malaynay in lagu weydiiyo unaishi wapi lama laga wadaa xagee ku nooshahay qofka marka wuxuu dhahay ninakaa Nairobi hasa qaas ahaan isli Nairobi aan deganahay qaas ahaan isli unakaa na nani yaad la nooshahay mise yaad la degan tahay unakaa na nani yaad la degan tahay mise yaad la nooshahay wuxuu dhahay ninakaa na familia yangu
waxaan la noolahay familygeyga. Ninakaa na familia yangu, waxaan la noolahay familygeyga. Midda kale Swahiliga wax markaa yangu aad dhehayso waxaas wax adiga aad leedahay oo kale aad loo isticmaalaa. Qofkan hadda familia yangu markuu dhahayo waxay u adeegsadaan ayaga qofkan inuu family leeyahay ka dhigayaan. Hadduusan qofkan family lahayn oo familiga hooyadiis iyo familiga dadkii la dhashay oo la nool yahay oo guri hooyadiis oo joogo wili waxay dhahaan yeetu ay dhahayaan. Qof haddii aad dhahdo qof hadduu ku soo waco oo ku weydiiyo uko wapi, ku aaway, waxaa laga rabaa inaad dhahdo tusaale kale waxaa dhahday niko nyumbani. Nyumbani wapi oo ku dhahay. Tusaalahaan kale wuxuu ku leeyahay waxaad leedahay kwetu mise kwangu. Kwangu haddaad dhahdo kwangu waa gurigeyga camal waa meeshayda kwangu. Markaas macnaheedu waxaa waaye inaad adiga leedahay gurigaas oo reer inaad leedahay. Haddaad dhahdo familia yangu familygeyga adiga familigaas iskale reerkaada iskale. Haddii aad guriga hooyada joogto aad dhehayso gurigeena ay dhahaan marka guriga hooyadii marka qofka u dhahayo kale mise xaafadeyda oo dhahayo kale xaafadeyda ayaga waxay isticmaalaan oo qofka guriga hooyadiis markaas uu joogo qofka guriga waalidkiis wuxuu leeyahay familia yetu. So markii waxaan uu familygaaga leeyahay keena ee u isticmaalaan. Markuu qofka asaga waxaan uu leeyahay qaasaan asaga uu leeyahay ee dhahayaan yangu. Marka waxaadan lahayn oo familigaada uu leeyahay yetu isticmaal. Familia yetu familgeena. Familia yangu mise kwangu haddaad dhahdo waxaas waxay u xilsaaran yihiin in adiga meesha ama mas'uulka tahay camale ka macna tahay. Okay, waa la fahmaa malaynaa meeshaas. Wewe adiga umeolewa ma lagu guursaday. Wewe adiga umeolewa ma lagu guursaday. Wewe umeolewa. Su'aasha marka aad rabin inaad weydiiyo waxaa waaye haddii aad rabto nin hadda su'aashan gabar la weydiiyo. Haddaa wiil weydiinayso oo ma guursatay aad dhehayso ficilka isticmaale umeolewa. Hadda gabar loo isticmaala dhani umeolewa ma lagu guursaday. Haddii aad wiil aad la hadlayso oo ma guursatay aad dhehayso ficilka uu isticmaale sidee u weydiinaysaa. Commentiga hal lagu soo qoro. Ndiyo mimi aniga nimeolewa waa la guursaday. Ndiyo mimi aniga nimeolewa waa la guursaday. Uliolewa lini. Uliolewa lini. Goormee lagu guursaday. Uliolewa lini. Goormee lagu guursaday. Uliolewa lini. Goormee lagu guursaday. Niliolewa waxaa la guursaday kitambo mar hore. Niliolewa waxaa la guursaday kitambo mar hore. Niliolewa waxaa la guursaday kitambo mar hore. Mid kale kitambo iyo la isku qaldin waqti hore. Waqti hore kitambo waa mar hore. Ciyoon oo kale qof wuxuu ku dhahay ciyoon imaw waqti hore imaw macna. taasina maxaa isticmaalaysaa maxaa leedahay kuja waxa loo isticmaalo meeshas kitambo maahan waxa loo isticmaalo ayadane commentiga igu soo qor qof waxa rabta inaad dhahdo ciyoon imaw aanan haraka ahayn kuja haraka degdeg ku imaw ay ka macno tahay waqti hore imaw aad dhihi rabtaa waqti hore imaw maxaa leedahay kuja haraka degdeg ku imaw taas qofka inuu soo socdo bisi amal ula jeeda inuu dhaqsaasna ku soo socdo waqti hore imaw aad dhihi rabtaa kuja kitambo ma dhihi karto waa qalad waxa loo isticmaalo ayaa iyadane idin karaba jaalin kala taageerayaal hilmaamin ardayda la gaarsiiyo halaas ay ku soo gabagabeynayna wabillahi tawfiiq